federalism is the law of the land. Federalism maanta waa sharciga dalka weey. hadduu shaqayn waayo hadduu nagu xumaado markeedan ka fakarayna ka tashanayna dalka Soomaaliya wuxuu u dumay waxay ahayd unitary state ala yiraahdo centralized power awood oo hal meel ku tuunsan hal meel hal gacan hal shakhsi hal qof hal degmo hal gobol 1991 January baa waxa duntay xamar caasimadii dalka dawladina waa ka baxday dalka inta kalena waa dumay soddon sano ka bacdi miyaan sida ku laabanayna haddana maanta haddii la yiraahdo xamar lagu kala tegay garow ma dhib baa ku dhacaysa kuma dhacayso wax dumayaana ma jiraan dawladda Puntland sida u jiraysa haddii xamar lagu kala tago samarkaan leeyahay ma aanu inaan aan diidanahay ka soo jeedo in wax la wadaago waxaan rabnaa way laakiin waxaan rabnaa maanta ayaan chance leenahay maanta wixii la qorto ayaa 50 sano 60 sano 100 sano 200 sano soo socota lagu dhaqmaya wuxuu ka hadlayay burhaan soo qaatay aqalka sare waxyaabaha dastuurka anaga ku doonday Puntland aqal sare sababtoo markaas 2011 markii dastuurka la sameeyay state-ka kaliya aqalka ku doodaya waxay ahayd Puntland bay waxaan xasuusanaa cid kale oo markaa jirtay galmudug bay ahayd markaa aan dhamaystiray oo gaalkacyo barkeeda iyo caalim waxay lahaayeen ma rabno federalism oo maxaa rabtaan waxaan rabnaa regional autonomy wax la yiraahdo waxaasdaanu doodii galmudug bay lama rabin la dhiso aqalka sare waa khasabna laakiin hadda xawna ma tarin waxada oo la taray oo loo soo kordhiyay ma jirto dagaal baa waxaan ku galnay waxa la yiri dowlad goboleedka kala sideed birayn kooyatan baan ugu leenahay maartin meel jiraan wala waxaan dad kuwa khibrad aan geysano madaxweynayaasha prime minister ro Abdulrahman Faroole Cumar Cabdirashiid ya si khibradooda aan uga faa'iideysano wax badan ay Puntland u dhiciyaan mataqaan meel jiraan yaa ka warqabtaa ma haysaa ma حاربنا مركا هذا دور بينه أقل كسره هذا أنا مركي الدود السعودي وهذا يسريسي إنترسكي بلان أي قارب بدر كم يدكسر شيء يا عالم كده يسريسي كاركتير ولا ما يلا ما لقينا بلان ما لقينا في رالي كمان كانوا كينبي أنا كانت أنا كبر لكن هذا حوي كورن بي كل وصول الله من دون مركب النوية ما عندنا أيوة كراس هذين أفر سنة كبعد ما عندنا لكن مركب هذا هو الشيء إن أنا وحسب إيه أكمل مركب تكعي يعني